waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa saaxiibkan xirsi iyo caddeyn kale oo caddeynayso luqadda Soomaaliga in Laatiin laga dhigo ee ka horreysay dowladdii kacaanka. Xalaa mid soo dhigay video ka horreeyay oo dhalinyaro badan ay dhaheen soo badi waa arrin loo baahan yahay, qaar dhaheen waa ogeyn laakiin caddeynta maan ahayn. Kuwa luuq igu soo qoray inaan naceeb iyo maxaa la dhahay arrimo kale wado oo dowladdii kacaanka ee luqadda ay qortay ayagoo dhahay macnaha luqadda Laatiin dowladda kacaanka inay lahayd hal abuuristeedii iyo ansixinteedaba. Taas marka waxaan ka leeyahay waxaan ku beeninaynaa buuggan waxaa la linguistic report oo soo baxay 1961 waa xilligii dowladda Aadan Cadde oo wasaare ka ahaa Cabdirashiid Cali Sharmaake. Saa u jeedno, this is the Somali Language Committee 1961. Marka waa isla eegaynaa xubnihii yaa ka mid a sidoo kale ti ugu wanaagsaneed ee la dhahay inay ka wanaagsaneed luqadaha kale tee ahayd in ashiis la marnaarno insha Allah. Horta xubnaha waxay ka koobnaayeen intan Muuse Xasan Ismaaciil Galaal, Yaasiin Ismaaciil Yuusuf oo member ahaa, Maxamed Saalex Ladane iyo Dr. Ibraahim Xaashi, Khaliif Suudi, Mustafa Sheekh Xasan iyo Shiro Jaamac iyo Xuseen Sheekh Axmed Kadare iyo Yuusuf Meegaag Samatar. Waa isla fiirinayna insha Allah. waxaa ina isla marino xubnaha isbedela lagu sameeyey marka say u kala sareeyeen isla fiirinayna kadib arrintan hore usii galayna insha Allah. alifbeetadii oo kuwana soo mujid A B C D F G H I J K L L M magdada waxay iska dhacsiiyeen dowladda kacaanka inay waxaan qoristooda leedahay inay ka horeysay rabaa inaan tuso insha Allah haduu Ilaahay idmo. waxaan rabaa inaan isla fiirino conclusion summary okwana committee oo macnaha qorista luqadan ka qayb qaatay golihii wada tashiga oo luqadda go'aaminayay oo kuwana noqday marka dambe bedel ku imaaday. waxaa Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal Jermanka ahaa, Shiro Jaamac oo Vice Chairman ahaa iyo Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo Secretary ahaa, Cali Sheekh Cabdilaahi Qutbi oo member ahaa iyo Dr. Ibraahim Xaashi oo member ahaa, Maxamed Jaamac Afbeled oo member ahaa iyo Abuukar Sheekh Maxamed Fadeh oo member ahaa iyo Cadow Sheekh Cali oo asna member ahaa. intaan dhan ayagoo committee oo nin walbana far keenay laakiin mid laga doortay oo one of the best heeda rabaa insha Allah inaan isla fiirino. meesha wuxuu leeyahay luqadda Soomaaliga luqadihii la mid ahaa badankood waa dhinteen. tusaale wuxuu usoo qaatay ancient Egyptians laakiin wuxuu dhahay luqado kale xoogaa ku dialect oo macnaha oo la xiriira luqadda Soomaaliga weli aanol oo tusaale usoo qaateen luqadda Gaala nowadays waxaa loo bedelay Oromo laakiin before waxaa loo isticmaali jiray Gaala. marka si aan waqti u ilaalino anoo doonay inaan waqtigiina qasaaray marka waxaa dhammaan xubnihii kala duwanaa horta waxay soo bandhigeen nin walbo alphabeticalkiisa xogiisa soo bandhigay laakiin in short waxaa rabaa inaan jawaabta saxda helno tee luqadaha faraha ta ugu wanaagsan tee ahayd. marka ta ugu wanaagsan ninkaana la siiyey oo Faarax Kadare Laatiin ahaan ayadoo u jeedin ba ta shaakha da ra sa sha da aga waa qoranta ayadoo oo kii oo Soomaali ahaan tiisi oo asiga oo qorxayga soo bandhigay. kadibna waxaa la whatever diinteena iyo qarannimadeena iyo macnaha dhaqanka qabiilada iyo dhammaan waxay caqabad ku ahaayeen qorista Soomaalida. tusaale waxyaabo badan markii la qoray waxaa jirta dad ahay Laatiin laadiin wadaada jiray oo kasoo horjeeda in Laatiin wax lagu qoro dhigi jiray Laatiin haddii la qaato macnaheedu waxay noqonaysaa laadiin oo diinta ka tageena marka caqabad ay ku noqoto qorista Soomaaliga. dadka qaar hab qabiilaysan la isku dagaalayo cadiifadaysan fartiida far hebel macnaha kama hooseyn karto wax noocaas. laakiin
in this maxaa la report waxaa ku cad Kadare fartiis inay one of the best cadeentana waa tanaa wuxuu leeyahay ana awe whatever our religious nationalities or even tribal settlement may be in this problem of writing Somali. There's no doubt that from the technical point of view, these two from the economical point of view, however, something can be said against Hussein Sheikh Ahmed Kadare's Somali script, but it is certainly better than all the other Somali scripts in most of aspects. marka far oo soo martay far qoraal soo martay intaasoo 9 sano la dharaandhirihayay laga shaqeynayay oo creditkeeda rag leeyihiin in maxaa la sheegeen si fudud dad qolo ku qaadato la dhaho dowladda kacaanka fartan aqoristeeda maalgelisay ayadaa ansixisay fartana waxaa qoray nin qabiil hebel loo saarihayo anagoo og in dowladii ka horeysay ee ansixisay fartan ee dhahayaan farii lasoo bandhigay tan ugu wanaagsaneyd ee la qaadan karo dhammaan lahjadaha Soomaalida wada keeni karta inay ahayd fartashii Kadare marka wari dhamaadkiis waxaan dhihi lahaa Soomaali xukuma maada been fakataro ma gaarto sidoo kale waxaa la lahaa been raad ma leh markii nima yahow cadifada la iska daa